Assalaamu calaykum. Ka waran haddaad riyada dhexdeeda aad ku samayso waxaysan suurtagal aysan ahayn in adiga soo jeeda aadan samayn lahayn. Haddaba sheekadani waxaa ku dhacday gabadh 29 jir ah oo lagu magacaabo Jenna Howell oo deganeyd magaalada San Diego ee gobolka California ee dalka Mareykanka. Jenna ayaa waxay ku riyootay riyo aad u naxdin badan. Waxay ku riyootay iyadoo ordaysa wadada tareenka ku shaqeeya leedhku maro, isla markaana uu qof gadaasheeda ordayo oo iyada eryanayo. Waxa ay maqashay cod ku leh fargalkii meherkeeda oo ay xirneyd qari. Codka ay maqlaysay oo ahaa codkii ninkeeda ayaa ku celcelinayay inay qariso fargalka ama faraantiga. Jenna ayaa si degdeg ah u saartay fargalkii oo ka samaysnaa diamond. Markii ay garan weyday meel ay ku qariso fargalkii ama faraantigii, ayay liqday riyadii dhexdeeda. Kadib waxay ka soo booday hurdadii, waxaanay aragtay inay riyoonaysay. Kadib waxay iskaga laabatay hurdadeedii oo halkii ay ka sii wadatay. Subaxdii markii ay soo toostay ayay fargalkii ka weyday farteeda. Naxdin iyo amakaag ayaa ku dhacay. Jenna ayaa isla markiiba tagtay cisbitaalka, halkaas oo X-ray lagu saaray oo caloosheedii lagu sawiray. Ugu dambeyn waxaa la ogaaday in fargalkaasi caloosheeda ku jiro oo ay si dhab ah u liqday riyadii dhexdeeda. Qalliin ay gashay ayaana lagaga soo saaray fargalkii. Jenna ayaa u mahad celisay nashqadihii fargalka. Fargalkan oo ahaa mid aan dhaawac u geysan nashqadiisa awgeed. Waxaa cajiib ah in riyooyinka qaarkood ay keensan karto inaad si dhab ah wax u samayso adigoo isku qaba inaad soo jeedo. Taasna waxaa lagaga hortagi karaa intaadan habeenkii seexanayn inaad akhrido 3 qul, aayad kursida iyo ducooyinka kale la akhristo xilliga hurdada.